kulan shir jaraa'id oo maanta ay isugu yimaadeen waxgaradkani kala duwan oo kamid ah bulshada ku dhaqan degmada Dil ee gobolka Awdal ayaa ujeedada shirkooga jaraa'id waxa uu daaranaa inay ka hadlaan dhacdo gubasho oo dhawaan ka dhacday deegaanka Dacwale ee duleedka bari ee degmada Dil. dhacdadaasi gubashada ahayd ayaa galaafatay caleen tiro badan oo halkaasi ku rasaysnayd ehelada qoyska halkaasi deganaa oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa dhacdadaasi gubashada waxay ku eedeeyeen dariska qoyskaasi la deganaa deegaankaasi. intaasi kadib waxgaradkani kala duwan oo maanta telefishanka caalamiga Ariel TV kula hadlay duleedka bari ee degmada Dil ayaa waxay iska fogeeyeen dhacdadii gubashada ahayd ee lagu eedeeyay ka dhacday deegaanka Dacwale ee duleedka bari ee degmada Dil. sidoo kale waxgaradkani kala duwan ayaa waxay eedeemo u jeediyeen shakhsiyaad ay sheegeen inay deegaankaasi ay ka wadaan iska warkeen bulsho waa sidii hadalka u dhigeen. kolley maanta halkan aan ku jiraa waxa weeyaan waxaan halkan ugu jiraana waxaan cadeynayaa on markhaati Ilaahay ka ahay inamada iyo reerka maartay inamada lagu eedeeyay dabkaasi inay ka dambeeyeen iyo reerka halka degan ee reer Faarax Umar dhamaantii inay dabka nagula jireen oo dadkii baqtiinayay iyo heelba maartay dabka hulaca galay ay kamid ahaayeen ayaana nuu markhaati ka Ilaahayna igu ogyahay laakiin anigu waxaan cadeynayaa inay inamada xidhxidhani ee maanta jeelka Dilaad laga gudbiyay boorama loo gudbiyay ay dabka nagula jireen oo waliba sidii maartay ay isku tuurayeen si ay wax u badbaadiyaan ay baqtiyaan waxa weeyaan dab la isqabadsiiyo wax mandaqadan macnaha ka dhacda ama Soomaaliba horta dhaqankeed ma ahayn mid kale waxa weeyaan qoyska waxa weeyaan aqoonta ilma raagade wax macnaha dareenaho ka jiray oo reerkaasi lagu gubo anagu ma ogin hawshaasi laba qoys oo la yiraahdo ilma nuux kaahiye iyo ilma Ibrahim aadan labada qoys bay hawshaas ka dhaxaysay hawshaas markay ka dhaxaysay waxa weeyaan mandaqada wax nin baa shidaya la yiraahdo Cabdiwahaab Ciise aadan la yiraahdo shidaya waxaan u maleynaynaa lacagta waxa weeyaan lacagtii Imaaraadku in meesha niman yahay soo gashay baan filanaa soo waxa kuugu daliila oo markhaatigeeda u haynaa waxa weeyaan hawsha dabko kala de waxa ereyadan macnaha ereygiisa waxa ku jira xalay markaan media daawaday markii macnaha la xoog laga xukumay macnaha bil iyo waxa ka sheekeynayde ay hawsha ku kaceen bulaha waxaan leenahay hawsha xukunka waxa weeyaan annaga labada qoys marka la yiraahdo anu waxaan ay xidhaha ugu xiga marka waxa weeyaan nuux kaahiye warsame anna Cabdi Muuse warsamana hawshii xukunka ahayd oo adeerkii oo la yiraahdo Muuse aadana aan xidha ahaan labada qoolmo iyaga ku raaliya lagu saxeexay ninka burburiyay isagu aha waxaan markaa anagu leenahay ina kaasi macnaha beerdoon ma aha mandaqadan inuu wareer kala galiyo ayuu rabaa waxana kuugu daliila qandaraas buu ka dhigtayo miidiyahan iyo waxa weeyaan dabsulitaankan iyo waxa weeyaan inuu lacagtan mashaariic ku samaystay ee laga sheekeeyay dabka reerka inuu reerkii la jaaraha gubay waxa weeyi reerka ismay hayna qof bay sayeen laba qoys bay sayeen ilma Ibrahim aadan iyo ilma nuux kaahiye ahaayeen media waxa ku jirtay reerka nala jaarkaana gubay baa ku jiray waxaan cadeynaynaa in sheeganaa inaan reerkaasi wax dambiyo ay galeen oo loo gubaa una meesha oole la jaarada loo qof isku qabtaan ummadda ama kala saarta ama sharciga dawladda kala saara hadii intaasi ay dhaafto wax kale oo meesha dhibo taala ma jirto ummaduna waxay tahay macnaha loo gartay iyo qaatay tahay walla xukumo uqaal baa isku timid oo war maxay noo dana la yidho waxa la noqotay wixii u danaha dadkii in la nabadeeyo oo war wixii halka yaala waxba inama dhex yaalaan 10 mitir iyo 40 mitir 20 mitir iyo 40 mitir oo madax weeyaan waxa lagu wada hadlay wixii waxa laga dhigay reer baa laga dhigay qandaraas soo qaatay ninka la yiraahdo ina Cabdiwahaab Ciise aadan weeyaan eedo horena waa loo hayaa dabka uu dadka gelinaya waxaan leenahay war waxa reerkaas waa ka bariyo kuma jiro gurmadka may galeen haday dambiilayaal yihiin nin dambiili uu baxsaday gurmad ma galo ragii gurmadka galay ee dabkii ku gubtay baa maanta la eedeynaya dhibta kaliya deegaanku ka la bariya waa dab ninka deegaanka ee qodaal heed degani cidna ma gubo
kiisana in la gubo ma ogola sidaa waxaa ku caddahay inaan reerkaas wax alle wuxuu gubay inu jiro waxa weeye cidda la haystaana dee waxa weye dadka waxaa lagu kala baxaa aragti baa lagu kala baxaa caddayn markhaatiyaal baa lagu kala baxaa dhaar baa lagu kala baxaa annagu waxaan leenahay dhaar baan ka ogol lahaytaa wixii loo kala baxayo waa dhaar ko haddii aan gacantaada ku jirtaan la odhan kuwii halkan ka gurmadee la haystay maanta gacmahoogii baa guban ay guddoomo ku baktiinayeen ayaa dhuundhuumay dharkii baa kaga gubtay dad islaamaan nahay dadkani waa dad jaarka iyaga ah islaama agoona inaanu caano falla maahe inaan aadiyadaynana dee jadwalka nooguma jirtaba annaguna ma ogolin allana ma ogola ciddii aadiyadaysana ma yeela nabadde ee kale meel kale kaga timaada waa dadkayagii dad abtirsiin wadaaga islaamnimo ka dhaxayso jaara ayaanu nahay waa hore dab waxaa ka gubta aqalka iyo agab wixii yiilay ciddii gurmadka ugu ballaaro ka geysatay ayaanu nahay aqalkii u urursay agabkii u urursay anficiisiis ayaanu nahay nin laydhaa cabdiwahaab ciise aadan wuxuu naga soo duulaa wajaaliya in ka durugsan kolalla kolku yimaado qas iyo qarib ayuu aloosaa ummaddu isku hor keeno iyo waxaan xagga alla ku fiicnayn iyo bilaaba waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama.